marka joodariga isku soo fadhiisan ninkan kaajal iyo shaaruqan iyo ajay kumar iyo waxaan ku dhahay noo ogtahay sandeeduud inuu daawado mar adoo rabaa inuu ku daawado mugtahay wuxuu ka bilaabayaa gacantaadu ka bilaabayaa mugtahay horta wuxuu isku rin wuxuu iska dhigayaa nin hadaa guri la gashay oo macawuus soo gashto waa inaad diyaar iska tahay haddaan diyaar ahayn waa inaad ka meesha kabahaaga ka qaadato horta gabdhaha Soomaaliyeed taas aan rabaa inaan u sheego cawada aniga waxay ka barta nin hadaa la ballanto oo macawuus wato warkayga wacdiyada waa ina attention kaagu adina waa inaad diyaar u tahay inaad ku yaacdid asaga adi kaliya ha noqonin victim ya oo dhibanaha noqonin adiga ma fahmaysaa waa inaad diyaar u tahay hadaa diyaar u weyn waa inaad ka carartid tusaale ahaan waxay ka dhiganta macawuustu waxay ka dhigantaa rabaa inaan kuu sheego macawuustu waxay ka dhiganta ninkaaga ku yimid gurigaas iska joogtaa moogtahay bijama soo gashatay ka waranay see waa bijama markaa soo gashatay bijama gaabana soo gashatay waa soo meeratay timihii soo deysatay fahmaysaa unsigaaga ku shidan casho yaraa u diyaarisay maxay ka dhigantaa madaqan waxaa la dhahaa jirka hadlaayo mafahantay jirka hadlaayo waxaa bixinaysaa calaamadaha bixinaysaa waxaa leedahay waxaan ku ahay diyaar macawuusta saasay ka dhiganta waa ogahay ragga qaar inay ku labistaan oo suuqa ay ku maraan taas waa sheeko kale waay laakiin nin markaa la ballansanta oo shukaansi u socdo hadduu macawuus wato ogow waxa ugu horreeya waa inuu gacantaada qaado macawuustana dhex geliyo waa inaa ogaatid saas waa inaa ogaatid af Soomaali ka weyn oo kaas aan dhihi lahay aniga ma jiro ma u maleynaa inaan wax kale in lagu celceliyo u baahan tahay fahanti ha marka waa inaa reed u ahaataa waxyaabaha kufsiga ka bilowday ka mid ninka waa soo raacday ilaa ay hadda wiilashii Soomaaliyeed su'aashaas isma aysan weydiinin maxaa qaldan maxaa jiro sababtoo ayaga problemkooda problemkeena maahan